الله الرحمن الرحيم بهوين سبورت وسلامي مركز جوجنا waxaan ku suganahay North London Crystal Restaurant inta waxa socod soo dhaweyntii isugootintii Legend Aidid waxay noo firi doona faaqid insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم كلي waxaan u maleynaa waxaan iskugu imaanaa caawa walaalkeen Cabdiqaadir Xasan Faarax oo aan nooga yimid meel fog cariga Mareykanka oo aan rabnay inaan maanta caawa kula sheekaysano meeshan kulay sheekadana macna waxaan u maleynaa inaan khiyaarta xaafadda aan iskugu imaanay dad badanna ay naga maqan yihiin marka kulay waxaan iyo wax ka badan oo naga isaahelay walaalkeen waxaan ku leenahay walaalkeen ku soo dhawow magaalada London kulay markii ugu horeysay aan qaabilnana ma ahan horena waa u qaabilnay insha Allah kulay hadii adduunyadan la wada joogana waa is arki doonaa oo is qaabili doonaa inkastoo dad walaalahay oo macna Legends ay joogaan Daysan Ahmed Bile Zakaria Bade Muftin Mooge Abdiyaare Jimcaale Shaadi Ali waxaan leeyahay walaalkeen ku soo aan ugu faraxsanahay sababtoo waa markii ugu horeysay oo Jey ay wax soo qabanqaabiso waa afar ciyaartoy oo Jey meesha nala fadhido xaflado badan aan qaban jirnay Aidid markaan ka reebna afar waa xaafadan ka hadlaa markaan Zakri markaan wax qabna ragaan luga u naabla jirto waa diidi jireen khudbada xataa laakiin caawa ويك دانو يشك شيغاي وداhay Aidid marka waa aad iyo aad ugu faraxsanahay marka Jey kulli waxaan isku nahay halaan dhamaanteen isku nahay baadana sida loo sheego ugu mahad celinayna sida ninkaas walaalkeen oo nooga daboolay laakiin si naftigiisa waa ka faa'iideystay xogaa miisaankiisa waa kordhay marka saaxiibayaal ayga nin culus waa runtii aniga Idris waxa amlaysa ayga waxaan ku aqaanay Jey koranka ka saartooyda koran la iska yaqeen laakiin saaxiibo hoose ma ahayn laakiin ninkan runtii waxaan isku aragnay Canada ayaan isku aragnay toos 2006 aan isku helnay xogaa ku shaqaysanay waxaan xasuustaa maalin anigoo la socdo Etop oo gaari wada saaray ayuu soo wacay markaas wuxuu yiri niyo adeer nuur Allah u naxariiste uu noolay xilligaasna Canada uu joogo wuxuu yiri adeer nuur hadduu wax u baahdo niyo waa soo baxay soo wac ila soo socodsi marka nin ka fikiraay nin gudoomiye u ahaa jiray nin taas aniga marka ninkan aan ku xasuusta aan respect maalintaas wixii ka dambeeyay aniga meel uu igu qornay marka aad iyo aad aan ugu faraxsanaa laakiin Aidid intaan markaan ku wareeji Abdiyaare inuu number 2 ka dheeli tare inuu ka dheeli jiray number 10 inaan noo kala sheegtaan rabnaa waxaan kaloo rabaa inaan fariin naga gaarsiiso ninka saaxiibka Mataan kulli Mataan sida lagu soo dhaweeyay ma u maleynaa adiga waxa heshay Jey heshay waa bariya heshay xaafado badan heshay asiga dadkii oo xilligiisa ma joogaan meeshaan marka Mataan markuu imaanayo isku soo tashto marka soo dhaw الحمد لله رب العالمين waxaan halkan ku soo dhaweynaa walaalkeen Aidid aniga farxad gaar ah ay tahay Aidid isku naadina waa ahayn isku xaafadna waa ka imaanay marka horena u soo dhaweynaa walaalkeen waxaan leenahay soo dhawow waxaan kaloo mahad celinaa asxaabta meesha ka soo qayb gashay reer North London oo xoogiis ay joogaan qaar kalena naga maqan duruufo maartay maxuu ahaay oo iska jira magaalada awgeed marka walaalkeen soo dhawow waxaan ku wareejinayaa engineer والسلام على رسول الله horta waxaan mahad mudan dadkii qaban qaabiyay xafladan aan ku sugootinayno walaalkeen Aidid hadii aan dib u malacsado Aidid wuxuu horta ahaa nin walaal ah oo aniga aan isku baranay Jey ka horna aan ku wada ciyaari jirnay xamar jajab iyo xaafadaha Aidid laakiin wanaagiisa iyo sharaftiisa waa mid muuqato oo aan la qarin karin waxa waaye waxaad ka dareemaysaa xiisaha ay u qabaan dadka waa nin khayr Allah siiye North America aad ugu soo dhaweeyay dadka
walow annaga aanan tegin badankeena laakiin dadkii tegey waxa ay qirteen Caydiid inuu maaragtay ka soo dhalaalay walow ay yar tahay meesha ay joogaan Atlanta ay ku yar yihiin at same time uu yahay hormuudka oo asaaso marka waxaana dhihi lahaa waad ku mahadsantahay Caydiid intaan ka fiican iyo ka badan in aad naga istaahishaa marka waanu kugu mahad celinaynaa booqashada aad soo booqatay safarka aad ku baxaysid barina ilaaha ku fududay adigoo nabad qaba caruurtaada iyo reerkaaga iyo dadkaaga Allah kugu celiyo waana mahadsantahay الله وبركاته marka hore waxaa mahad iska leh aliyo iskaan keenay meeshan alxamdulilah rabbil caalamiin tan kale waxaan leenahay walaalkeena cabdiqaadir xasan faarax Caydiid ku soo dhawow London kulay sagootin waa jirta caawa ku sagootinayna haddii ilaahay sam meesha wadanka kugu geeyo aada u mahadsantihiin dhalinyarada meesha isku soo qaban qaabisay oo iskaan keentay caawa horta aad iyo aad idinka mahad celinaya kulligiin North London markii koowaad maaha u maleynayo faaqada sheegay markii saddexaad iyo labaad inay tahay jeclaa dilayna marka cabdiqaadir xasan faarax walaalkeen ku soo dhawow London wadankaaga gurigaaga nabad ilaahay kugu geeyo waxaan ku rajeynaynaa mar labaad anagoo fiiyo anagoo caafimaad qabna inuu ilaahay iska kulmiyo kulay dad igu waaweyn waa joogaan meeshan deeya joogo zakariya joogo waa la badan yahay alxamdulilah rabbil caalamiin Caydiid aniga waa isku walaalkay saaxiibkay isku xaafad isku daris wax walba isku soo seexday isku soo wax cunay kirishboy xataa way ahaa dadka ma oga laakiin mar ana caasiya isku waday waa shaqeynay ninka Caydiid kirishboy haweenkii noqon jiray mar lacagtu la gooyna ma habeenu iska degay asoo lacagta aruuri soo ilaahay baawar galbaabku ii xir waa baawday marka ma aniga alxamdulilah maanta aan wadada weyn is aragnay alxamdulilah Cabdiqaadir xasan faarax soo dhawow walaalkay mar kale anagoo fiiyo ilaahay iska kulmiyo kulay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وتناول الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka hore waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu xamdinaynaa in kulankan ilaahay nagu kulansiiyey annagoo ay tahay xaflad ma ahan waa wada sheekaysi is aragti Caydiid waxay ugu dambeysay 32 sano alxamdulilah caawina is aragno wada sheekaysano qadarka ilaahay ku timid waxaan rajaynaynaa tan iyo to ka fiican ka badan in ilaahay nagu kulmiyo meel kastoo adduunyada ka mid ah Caydiid sheeko waaye aan kula sheekaysanayno ma ahan martiqaad tantoo ka weyn iyo waqtiga wuxuu ku saamici waaye adoo beri baxayo haddii ilaahay yiraahdo ilaahay waxaan ka baryaynaa maalin ka badan ka qayr fiican inaan isku wada kulno meel adduunyada ka mid ah haddaan u soo jeesto mas'alad yar aan rabaa xafladaha dadka qaarkiis ee magaaladan jooga isla noolnahay khudbadooyinka way dhibi jirtay laakiin cawada waxaa ii cad inay hoos ay tahay ay baasha la leeyahay jeenyo waaye la diidin ba cawada oo la yiraahdo Caydiid waaye ay teammate-kaada waa ogahay waa walaalkeen annaga waa noo yahay baadha waa sidoo sheegay ani deysan waa ka weynahay ani ma diidahay laakiin adeerkayo saaxiib leeyahay min adeerkayo saaxiib la marka ani ma ka weynaan karo marka Cabdiqaadir waxaan Umar aan ugu mahadinaa howl adag ayuu qabtay sanadkan qofkan waa in credit la siiyaa runtii boss uu buuxiyay ma buuxin karno hadaa ani faqadkooda leeyni Caydiid kama uusan dhaqaaqin laakiin mid kale waa ku amaana oo wuxuu iga hayaa ma teammate-kayga kabtankayga walaalkay markuu ima asaahay Umar Cali soo asaahay Umar waa maasantaa waan dabooshay khayr Allah ku siiyo الرحمن الرحيم marka hore waxaa mahadle ilaahaygii isku keenay halkan marka labaadna dhalinyaradii soo abaabushay fadhigan runtii oo lagu soo dhaweynayo saaxiibkeen Caydiid sidoo mooga sheegay isboortigu waa isdhexgal waa walaaltinimo inteena waxaan isku keenay waa sports marka waxay ku tusaysaa isboortiga wanaaga uu leeyahay ayay ku tusaysaa intii soo ciyaari jirtay dhammaantood intaan joogtay ninaan soo ciyaarin male horta xoogaa aniga waxa waaye waa dadka aad u raacsana ahay dad baa waxay dhahaan wixii 9 ka horreeyay no wixii ka dambeeyay ninkii ciyaaray xaq uu leeyahay waa ciyaaryahan ciyaari jiray oo waxa marka lama sheego runtii marka waa niman soo ciyaari jiray oo respect nagu leh dadka qaarkiis waxay dhahaan macnaha nin u soo ciyaaray 10 game oo qaran national team soo dheelay in la yiraahdo Soomaali ciyaarin wax qalad ah waaye marka dadkii 9 ka dambeeyay waxaan dhigi karaa anaga xataa wayba naga fiicnaayeen reality waaye
marka respect hala siiyo ciidiid walaalkay soo dhawow waxaan dadkan dhan waa walaalaha ku jecel waxay ku tusaysaa wanaagaaga inta maalin aad joogtid caawa mee qofooda ku soo wicisa ku dhaysa caawa laastiga aan is aragno macnaha waxay ku tusaysaa jecel lagu qabo magaalada London marka soo dhawow dadkan dhan waa walaalaha ku jecel sidoo kale waxaan u mahadcelinaa Cumar Baadhe oo runtii shaqo badan qabtay Cumar run waayo coaster wada jiray ana waxaan maqli jiray markaan dheelay Katanga noobaha coasterka record wuxuu jibi soo ciyaar maanta leh ayuu baabuurka soo raray kii ninka dhammaan fiirsanay isaga way baabuurka warar walaal beentiisa ma ahayn على حال مركا ولا ليال معناها هذا وما تنتين غير نور لندن رنتي وحن أنا أهان مفتنا عاد كوفرح سنة هاي إن كلا سوقيب قالوا سودوين تا وسمينا ولكن عيديد رنتي أنا ضد بدن المدة أنا سأركن سيد سكريو كلا أو أنا المدة دارس أركن مركا وحن ليه هاي دمنتين هذا وما تنتين عيديد سفر سلامة إلهي كسمجيو مركا إن شاء الله أما نصود نقطنتا أما كوي من دونا دوالي راس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم كل عاوة وحنسون نمد إن الله شاكيسنا عيديد وكسود وين مقالة لندن قارها نورد لندن كسود نورد لندن مرتد الله صعته وحن لنا هاي كل سبورتي مهم ديس انتهى واي أنا عيديد بس ما نقان حلو ديل جريم بسوق جارين لكن واحد سكان كاني سبورت هو ما هن كان ذا أصل جوجن السنة كان أشوف عرقني وحن فوذي ناس عرقنا صاحب كي دي سنة وكسود دوا إن شاء الله أنا جاي وصوب باخدنا بشير يا أصحاب تكلي إيه أيجي نوصلان إن شاء الله ورلاد مرستح السود وسفر كذا إن شاء الله إله كوفو ذا ديلا بسم الله الرحمن الرحيم وحاكم كسود وين ولكن عيديد وتيمتك صاحبك أها ودتك وين الرول موديل كانوا أها marka waxaan leeyahay ciidid ku soo dhaw London insha Allah waan kugu iman doonaa Mareykanka duu Ilaahira samarkan walow aan aad iyo aad kulligan urjeeneen inaan ku imaano marka soo dhawaan kulana insha Allah safar salaama safarkaadana adiga reerkaada caruurtaada Ilaahay ku nabadgeeyo anoo nabada Ilaahay nusku keen mar dambe السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاو runtii waxay tahay waa habeen farxad leh oo aan ka soo qayb galnay casho soo dhaweyn aan ugu tala galnay saaxiibkeen Legend Ciidiid noogu yimid dalka Mareykanka magaalada Atlanta Ciidiid oo ah ciyaartooygii Genyo number 9 inuu ka ciyaari jiraan qiyaasa runtii Ciidiid aniga aalamiintadan imaajiri Genyo faaqida isugu jiro walkay waana arki jiray ma sha Allah waxayna ii tahay farxad caaw inaan ka soo qayb galo Genyo waxaana caaw la yaabay Cabdiyar oo la sheegay inuu Genyo u dheeli jiray runtii annaga dagaalkan ugu dhacay annaga xataa kooxan u dheeli lahayn laakiin runtii dagaalada kadib dad baa kooxa u soo dheelay oo magac maaragtay soo sameeyay waxa kamid ah saaxiibkii Cabdiqaadir Mooge ayagana waa soo halgamay runtii waa u mahad celinayna ayagana runtii waxaan leeyahay caaw dad ka soo qayb gala cashadan aad u mahadsantiin Genyo caawa dhanyiin faaqada joogo Axmed Bilo saaxiibkay joogo Baadha joogo Legend Daysana Petrolko adiga Genyo ma tiid Petrolko matala maraw inaan ku dheeraado Jimcaal oo la isku qabsi jiro oo dhigi jiro ma dheeli ma sawiraan la keenay Ciidiida keenay Jimcaal oo guuriyo waxa ku soo biirtay Legend iska ku soo biirtay انت صاحب انت صاحب كابتن وبالله توفيق